taageero maxaa taageeraysiin waxaa taageeraysiin wax hadda aad sheegaysiin xorriyadda muwaadinku waa xaq dastuuri ah waxa adduunka ugu fiican oo bani aadam oo ka shaqeeya waxa waa inuu ama xorriyadiis ama xorriyad qof kale oo la handadayo oo xaqiijiyo inaan la handadin umadaha hore u marana taas ay hore ugu mareen aniga waxaan aaminsanahay dawladnimada halkaas ka bilaabata asaas ahaan dadku inay xorriyadooda doontaan ku dhiganaadaan qof kasta oo la dulmaayana ay ka hortagaan marka qof kasta oo isku daya inuu awoodda dawladnimo u adeegsado inuu ku cadaadiyo muwaadinka waa in laga hortago waa mabda asaasi ah oo qof walba Soomaaliya khuseeyo annaga hadda isoo ma karnaa waa hadda karnaa laakiin dadka aan hadlayna annaga nafteena kale uma hadlayna waxaan hadlaynaa qof kasta oo Soomaaliya aan hadlayna waxa la idin sheegay waa maqlayseen annaga safarkeenu wuxuu ku aadanay gurmad lacagihii la aruuriyay in la geeyo Hiiraan gaar ahaan beledweyn dadka laga qayb qaato xanuunka wixii la helay loo geeyo guddigii la gaarsiiyay meesha si ay shaqadii u qabtaan dadka laga qayb qaato xanuunka isla markaasna la dul istaago baahidooda intaas aan u socon wax kale ma jiro siyaasad ma jirin waxa ma jiro barka siyaasad socoto hadda beledweyn ka socotay ma jirto may intaas aan u socon qofkii marka maskaxdiisa ay ku jirtay Kismaayo markii la aadaayay siyaasadda loo aadaayay tan siyaasadda loogu socday Kismaayo siyaasadda loo aada sax ahayd laakiin beledweyne siyaasadda loo maad taas macnaheedu waxa waaye dawladdeenu ma fahamsana wixii loo doortay ma fahamsana sharciga lagu doortay diyaar uma xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed lagu aaminay inay ilaaliso wali famaan malana haddii intee istaagto dadkaas gargaarkii u baahan inay gaarsi lahaayeen waxaan dhihi leen alf shukr waa mahadsantihiin shaqada nagala rabaa qabateen bas ka joogi lahayn laakiin meeshii waxna ma geynayno baahideeda kuma filnin intaan baxno biyo lugaha gashanaan soo noqonaynaa sawiraan iska soo qaadaynaa qofkii aadaayana ma aadi karo aniga sideedaba siyaasadda saraaxadan ka aqaano been kama aqaano wax sax ma madaxweynaha Sacuudi ku warbixiyay waxa la tagay hal saac oo subaxnimo waxa laga baxay 5 saac iyo googo intaas mar walba qiso cusub aan loo alifay marka ugu darada waxay ahayd war garoonka biya galcanaya ma lagu dagi karaba waxaan war garoonka annaga dalkaana deganaa waan naqaanaa biyo kama jiraan waxaan la qaado waana la geeyay meesh astaghfirullah ana lama geeyna dhaxal naga la soo celiyay markaan beledweyne kor tagnay oo garoonkii aan aragnay soo kala jiray baalki xamar markaan ku soo dhownahay ya بايلوتكي وحول الدوضي مدحين مش هيا مدحين حس الشق حول مدحين قرانك وقويين هاي لنا عدنا قويين لو مدقي كر نية وحنا اتوسي سويحي ايربورك اللي قلت تصوح وحبا كما جرانه وايدين علينا انا اودين ما وضع ماشي نيكي مسكحدي سواء اسبد الشيء حرير وسميس لمركي ديارات ميلتري او ديارات دا انغا ان ودنا markay ugu yartaa laba marka culus oo dalka Ethiopia laga leeyahay ka digta بايلوتku waa maqlaay waa kala jiray waa ninkii marka meeshii tagnay airportka sida la idin sheegay airport laga gabeeysan karo yani laga booraysan karo qofkan biyaysan beenta intaas la eg inay madaxda dawladda ku mashquush oo dadku ku mashquush oo annaga intaas nagu rafaadis runtii waxay nala noqoto waxaan fiicnay marka dareenkayga marka ay la wadaago ani wax fiican aan arkaa sababtuna waxa dadka Soomaaliyeed waa dad baariyaala waa dad fudud ay fududahay inay ku aaminaan dawladdu mar walba tilaab kasta qaado waxa imaanaya wax looga aamin bax anaga laftigeena dad waaweyn aan hadda macna hadda maanta waxaan soo xaqiijinay garoonka wixii laga sheegay inay been ahaayeen dadka reer beledweyne waxay ogyihiin garoonkoodana biyo fadhin adinka hadda warbixina qaadanaysiin dawladdu inaysan awood u lahayn anaga mucaarad waana laakiin mucaarad wax dhisayaan maxaa wax ku dhisaynaa sharci qoryamaan ugu aragtay aniga xas shaqo wadana maya ولكن مية أنا كلا هذا الدولة ده الدمية مايا أنا وحالنا الشرعي هلا إلالي دولة نمدو وشرعي هلا إلالي وحقوقه الريانة حرية المواطن دولة كسته وقصة شقيسة ديكتاتورية مصير كروحي هاد بابا يبربر تاريخ هنا كتكت تاني شرع هذا أنا أقول رئيس صدق سنة دجال سكية هاي نقطة ومليح لنا
macquul ma taha hadda in haddana dib aan u bilaabno sheekada ku celin mararka qaar waxaa islaada Soomaalidu nin kastaba wuxuu rabaa inuu Maxamed Siyaad Barre noqdo war aqli ma aha Maxamed Siyaad Barre hadda maanta hadii la soo celiso wuxuu ku khasbanaysaa uu fikir jira ka duwan inuu fikir oo ku khasban marka aqliyadaas waxaa loo baahan in la iska dhigo dadkan waa dad sharci waa dad dawladnimo waa dad raba nidaam iyo kala dambeyn iyo is-ixtiraam taas loo baahan in lagu shaqeeyo dawladuna waa cid ugu horeyso oo laga rabo inay sharciga ixtiraamto marka runtii arinta waxay nagu bixinaysaa inaan u istaagno oo foojignaano tilaab kasta oo la qaaday dalkan dawladnimadiisa waxaa loo soo maray duruuf adag dhibaatooyin fara badan dad badan oo dhintay kuwa badan oo dhaawacmay maanta raga waxay rabaan ka sameeyaan xataa natiijo kama fikiraan garoonka diyaaradda dadka hadii laga celiyo maxaa dhici kara xataa isma weydiinayaan dalkan dadku qoriyay waa haystaan wali xanuunka waa haya cadaalad darada waa dul saaran tahay albaabadu waa xiran yihiin jid la mari kara ma jiro hadaa qofka ceejiso maxaa ka imaanayso inaas weydiisid ma wada aqli leedahay marka runtii waxaa muuqanaysa qofka caadiga ah oo normalka aqliga inuu ka hooseeyo aqliga dawladda I'm sorry to say that qofka caadiga ah oo normalka Soomaaliga aqliga waa ka hooseeya dawladdan waxaa laga rabaa inay dadka dhan ka horeyso oo institutionadeedu u adeegsato waxa ugu fiican ay sameyn karto arinta madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay oo ah in la toojar gareeyo dadka ganacsatada مثلا shirkadaha diyaaradaha iyo civil aviation waxaa rabaa inay bareeraan oo ay dhahaan go'aankaas annaga soo saarnay siyaasi waay laakiin ina adeegsaday wiilal masaakiin oo soo shaqo tagay oo reerkooda u soo shaqo tagay waa nasiib darro haddana madaxdii qaar kamid ay handadaan oo ay dhahaan tilaabo laga qaado oo maxaa tilaabo uga qaadaysaa adaa dambiile qofkan waa shaqaystaa waxa siisa shati oo ku duulo shuruudaha iyo soo buuxiyay waa ganacsana waqtigiisa yaa cuntay madax wareera ku riday garoonka markuu tagana biyo kuma jiraan marka yaa dambiila أنا وحن قبا شركة إنها دعوة قباني مش دولة إنها دعوة شركة إنها دعوة قبا والدعوة كفرت السيفل أفيشن كي دولة سيدا صح لا تسوى ماذا شان وحي أتاقنت حقوق المواطنين الصوماليين يعني هذا الكلام إلا ظلمنا مالين كست ظلم كاس يمد لمدا حفيشة الدولة كذا عن مالين كست صومالية مغلى عبشدين سوق قارسية ماذا شان والله ثم والله ديار عنا وقادنا ماش أقول سريسان قارسيننا مقالة ذا موريانا هي سجلت الصومة ولا لا تقال موالد بحش مصابنتي إثيوبيانا سوق له محل قسمي ولا بحي الشباب قبصدي مكحوق بديهن انت كم والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله هذا سن جوجين وبحنينا وقف كان شرعي رب المحول نقول فيري بل دغيستا قفك aan sharci rabin maxuu nagu la joogaa maxuu nagu xukumaa maraanimo ma ogol waadina maraanimo annaga sharci in la isku xukumaan rabna annaga ugu horeeyna nagu la xukumo laakiin dhulumkan joogtada oo socda ma aqbaleen mana la aqbali karo nafteena uma qaadayno qof Soomaalina uma qaadayno ogaada shala markii aan ka hortageenna waxaan cid nagu soo hanuunisay cid nagu soo garbashay garaadkeena dafay alxamdulillaah fadligiisa maanta intii waa ka garaad badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aanan aqoonina baranay maanta dhulmi ma ogolin mana aqbaleen dalkan sharci uu leeyahay sharcigaas aan rabnaa lagu kala dambeeyo sharciga cid ka baxda horteedan taagana aku talagasho oo maxay shaab uga duwan yihiin waxay uga duwan yihiin lama كم واقف توجر قري وحكوا الدين تاني سيدان ربا وآمن كان وحكوا السيدان ربا ولا توجر قري محيوك الدوين مك محيوك الدوين لما لا بعضنا وقرنديد وأنا قرندمس وسومال الدين ومدن مديد مركب حالنا كفى بتكوجوك سدا ماشين كوجوك سدا
Soomaalidu maanta maalintii la bacsi jira ma aha dawladnimada waa la idinkaga faham badan yahay waa la idinkaga xoogaalsan yahay maantana dadku waa soo jeedaan marka waxaan leenahay waxa taagantiin maanta aqal daradiina gargaar bani aadanimo lama geey karo dad dhibaataysan oo Soomaaliya lama gaarsiin karo baladweyne lama geey karo yaa idinka aqbalay idinka aqbalaysan jirto marka waxaan rabaa walaalahay inaan isku khaldamin inta ay sharciga dhowrayaan sharciga aan dhowrayna haddii sharciga diidaan annagana waa diidna iyaga waxaan rabaa nuqdo kale inaan ugu gudbo waxaa la yiraahdaa xurriyadda iyo xuquuqda waa la soo qaataa isma siiyo aniga saraxatan waa enjoy gareena amalkan sababtuna waxa waaye xuquuq qof qaadanayo oo laga soo dhigayo oo tuuga de tuugana ceyrsato wax ka fiican miyaa jira warqabta tuugada ka daba taga wixii adduunka ugu fiicnaa ugu qaalisnaa rabaa inay qaataan waa xurriyadaada wax ka weyn miyaa jira maxaa uga tanaasuleysaa marka xoog badan yihiin nimanku aan iska dhicin marka intaas aan noo ballan. Assalaamu calaykum.